السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برادة نيرجينيا. You know, فيديوهيدا hoostooda kumantada marar badan waxaan ku arkaa ma qof kaliya mise waa dhowr qof comment ama oraah caan oo tiraahda rag iska dhici iyo alla ka cabsi meel ma wada galaan. Oraahda in badan baan ka fikiray talo maxay ka wadaan. oo ragganaad iska dhicinaysaa ama dadkanaad iska dhicinaysaa maxay yihiin iska dhici kelmadda lafteeda markaynu qeexno iska dhici yaad iska dhicinaysaa waxaad iska dhicinaysaa dad uun kugu xadgudbaya adiga oo dhibaato kuu geysanaya ama xaqaagii duudseeya kugu khaldamay kugu gafay wax kaa qaatay somehow ku dhibaateeyey. diinteenna qayb muhiima bayba ka tahay inaanad gefka iyo gardarrada qaadan iyo quudhsiga. marka waayo dadkan maslaxada loo sameynaya waa niman had iyo jeer eeg rag iska celi ama rag iska celin iyo alla ka cabsi meel ma wada galaan. in fact waaba cibaado inaad wax iska celiso oo aanad dhibaatada iyo quudhsiga qaadan. yes sidaad isaga celinaysaa necessarily ma haddee qof afkaala hadlay inaad gacan ula tagto laakiin inaad afkii isku difaacdo waa waajib. gacan haddii lagula tagana equally waa inaad gacantii haddaad isku difaaci karto aad isku difaacdaa. laakiin tani waa aamusiin waa lagu aamusiinayaa diintiiba haddana lagu adeegsanayaa like a jeedal oo kale adigaa lagugu aamusiinayaa dhibanihii ama qofkii la duudsiyey ayaa lagu aamusiinayaa. ilaahay ku dhaaf waay baan u maqli waayay nimankan oo la leeyahay ilaahay ku dhaafa gabdhaha. midda kale gabdhahan for example la leeyahay dee way isqaawiyeen ama niman kale bay shukaansanayaan si cad u shukaansanayaan ama whatever. nimanku intaa iyo inka badan bay sameeyaan iyaga aakhiradooda maxaa uga fikri weydaan. midda kale gabdhahan laga naxayo marka ay ama niman aan Soomaali ahayn shukaansadaan ee lagu arko ama ma garanaysaa nin aan Soomaali ahayn ay guursadaan. gabdhahan xataa markay nimanka muslimiinta guursadaan nimankii la dul saarayo isku tallaabada ama dee isku tallaabtii masiixiga. gabdhahan laga naxo uun marka ay Soomaalida ka jeestaan aakhiradooda la damco in la sugo maxay tahay. nimanka jannadoodii maxaa helay nimanka ma rabtaan miyaa danka ma lihin iyaga maxaa ugu nasteexayn weyda nasteexadan ay hablaha la doontaan. nasteexadu yes waa wax wanaagsan laakiin anigu ujeedkaygu waxay tahay in mar walba dadka isku si loogu nasteexeeyo ilaa haddii kale waxay u ekaanaysaa arrintii wax aad xaaraantinimaynayseen baad haddana dad kale u xalaalaynaysaan. taasi sida caqliga bini'aadanka iyo qalbiga bini'aadanka u shaqeeyo waxa weeyaan munaafiqnimo ayay muujinaysaa. waxaan leeyahay waa xaaraan eeg anigu meel cilmiyeysan baan ka imanaya waxaan leeyahay waa xaaraan mala xaaraanba ma ahee waa haddaana dee weliba dadka aan diinta si fiican u baranay garanayne ay u fududahay inay diintaba hadday doonaan ka baxaan because munaafiqnimadaa ay arkayaan. anigu idinkaan idiin nasteexaynayaaye gabdhahan aakhiradooda danka ma lihin haddaad aakhiradooda danka leedihiin mabaydaan xumayseen xaaraan maydaan barteen balwad maydaan barteen maydaan kufsateenoo ma garanaysaa umaad fududayseen in ay diinta iyo ma garanaysaa iyo kalgacalka iyo jacaylka iyo wax walba iyo xishoodka iyo wax walba ay ka tagto marka la kufsado qofku hadduu doono wuu xumaadaa wax walba u fududaada ciil buu wax walba u galaa iyo gefka loo geystay ee loogu hiili waayey isagii lagaga hiliyey dhibaateeyihii lagu karaameeyey. That's how human nature works. marka aakhiradooda haddaad turaysaan marka hore ka ilaaliya caruurta sexualizationka early on aad ku baraysaan waxyaabo fadare ah. hablaha aad taataabanaysaan aad balwadda baraysaan aad muxuu ahaa khiyaamaynaysaan aad la seexanaysaan la seexashadii ay idinka xalaal idiin tahay iyagii weliba aad kusii cambaaraynaysaan kusii dhibaysaan tii la kufsado iyo tii lagu sasabtay iyo tii advantage lagaga qaatay iyadii lagu fadaraynayo. muujiya waxaan oo dhammi inay xaaraan ka wada yihiin ummadda oo dhan oo ilaahay naga wada xaaraantinimeeyey. isku si uga hadla xaaraanta. aakhiradayda aad danaynayso marka aan ku idhaahdo dhibka iga daa maxay tahay
diintu ma adigaa diintu ma adaa diinta matala war ordoo dib isugu noqda dadaan caqli saawsi badan lahayn baa tihiine marmarka qaarkood waxa laydinku sheegaya laleeyahay marka la yidhahdo 68 weeye IQ-goodu wixii baad isku qiraysaan waxaad ku hadlaysaan makes no sense wax micnoo haba yaraatee ay samaynaysaa ma jirto dood ma haysatid caqli ma keenaysid meesha diin hadalkeeda badaa diintii baad caqabad ku tahay ood qaloocinaysaa ood ulka dhiganaysaa ood si walbood u isticmaali karto isticmaalaysaa annaguna diidna inaanu kaa yeelno iyo inaanu kaa qaadano because diintii baanu baranay gabdhihii diintii bay barteen waa critical thinkers waayna og yihiin in badani waxay doontaa samayso iyadii ilaahay inay diintani ka dhexayso adiga aanay meeli kaaga bannaanayn diinteedana aanad dan iyo muraatoona ka lahayn simply ama si xaqa uga hadla xumaanta ama haddii kale iska aamusa because munaafiqiin baa u egtihiin idinkaan idiin naseexaynayaa idiin turaya anigu haddaad wax maqlaysaan laakiin of course not waan iska ogahay laakiin waajibkayga waa inaan guto